waddankiina waa dhagxaan madow iyo buuro ee ayaka miyaad cunaysiin waa weero erayo ah oo gumaystihii Faransiiska uu ku yiri dalkaas markii madax banaanidiisa uu ka qaatay oo heryaha gumaysiga uu ka dulqaaday balse maxaad ka ogtahay dhagaxii dheemanka isku bedelay dalyarahan waa Djibouti oo ku yaala qaaradda Geeska Afrika ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa xaqiiqooyin badan aad ka ogeyn waddankan Djibouti waa wadamada ugu yaryar ayuu qayb ka yahay dalalka qaaradda Afrika dal helay madax banaanidiisa 1977 haatan oo muddo 42 sano laga jooga madax banaanida muwaadiniinta reer Djibouti waxay ka mid yihiin dalalka awood ahaan iyo dhaqaale iyo tan nabadgelyo ugu horeeya qaaradda Geeska Afrika dalkan oo horey uga mid ahaa Soomaaliya waxa uu qayb ka noqday qaybintii dalkeena gumaystihii ku soo duulay ee dawladda shisheeye u kala suntay Jamhuuriyadda Djibouti waa dal yar oo ku yaala bariga Geeska Afrika waxayna xad la leedahay Eritrea dhanka waqooyi Itoobiya xagga galbeed iyo koonfurta oo Soomaaliya ah dhinaca kalena waxa uga beegan Djibouti badda cas iyo gacanka cadmeed weynanka dhulkeeda waa 23200 kilomitir oo wareega Djibouti waxay xuduudda u dheer la leedahay waddanka Itoobiya oo dhererkeedu yahay 949 kilomitir waxaana ku xiga xagga dhererka dhulalka ee xuduudaha la leedahay Eritrea oo la wadaagto 109 kilomitir Soomaaliya ayay la wadaagtaa dherer dhan 58 kilomitir xeebta Djibouti dhererkeeda waa 314 kilomitir cimilo ahaan waxa uu qayb ka yahay wadamada kulul ee qaaradda Afrika ku yaalo wadadan tareenka waa halbowlaha ugu badan oo dal aan bad lahayn dadkiisana qayb ka yihiin dalalka qaaradaha Afrika ugu dadka badan oo Itoobiya laga jeenaniyo tanina Djibouti waxay u noqotay fursad dahabi ah oo dhaqaale badan ay ka soo xariisay maadaama ay xeebta Djibouti ay tahay mid kaliya oo Itoobiya ay wax kala soo degto dalal badan oo qaaradda Afrika ayaa halkan wax kala dego oo qayb ay ka tahay Suudaan iyo dalal kale dawladaha reer galbeedka oo qayb ay ka yihiin Mareykanka Shiinaha Faransiiska ayaa xarumo waaweyn oo ciidan ku leh dalkan kuwaas oo arkaan inay tahay fursad dawladana waxa uga soo xarooda dakhli badan dalkan ayaa looga hadlaa 4 luqadood oo kala ah Faransiiska Carabiga af Soomaaliga iyo af Cafarta kuwaas oo bays u ah luqadaha looga hadlo dalka Djibouti maadaama ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan dadka ku nool Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ka kooban yihiin Soomaalida Cafarta iyo xogaa Yaban ah iyo tiro kale oo dad ah oo ka soo jeeda dalalka galbeedka iyo sidoo kale Afrika Soomaalida ayaa ah dadka ugu badan oo 67% ka ah shacabka Djibouti halka Cafartana ay yihiin 31% waa dad kale oo ka kala yimid qaaradaha kala duwan ee dunida bulshada ku dhaqan waddanka Djibouti waxay u badan yihiin diinta Islaamka oo 94% ay ka yihiin halka diinta Masiixigana inta haysata lagu sheega 6% caasimadda dalkani waa isla Djibouti oo dalka ku magaca madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkani ay yeelatay waxa ahaa Xasan Guuleed Abdidoon waxaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Djibouti kadib xorriyadeedii 1977 oo dhulkaasi uu gumaystay Faransiiska madax baneeyay laga soo bilaabo 1991 waxa talada dalkaasi hayay Ismaaciil Cumar Geele oo doorasho kasta oo la qabtaba ku guuleysanayay waana mid ay shacabku u arkaan in horumarka baaxadda weyn ay ku tilaabsanayso Djibouti oo qayb ka yahay dawladdan yar ee haatan awoodaha xooggan ku leh ururada siyaasadeed ee ka dhisan qaaradda Afrika iyo kuwa reer galbeedkaba in ay madax banaanideeda hesho qof kasta oo Soomaaliya ayay Djibouti farxad u ahayd dalkan ayaa u furay iridda qof kasta oo doonaya in uu maalgashi sameeyo waana mid hormarisay dalyarahan muddada kooban ku sameeyo horumarada kala duwan ayaa ka faa'iideystay qalalaase ka jira qaybo kamid ah dalalka dariska la ah oo Soomaaliyaba ay qayb ka tahay waxaana fursadani u sii sahlaysay in qof kasta oo maalgashi doonaya iyo dawladaha kaleba ay u fududeeyaan albaabada laga soo galo maadaama dalkani ay horumarkiisa qayb ka tahay markuu Faransiisku sida lahaa walwal uu qaban Djibouti uu lagu diganayay dad meeshiga ka haysanooda caarisan 6 bilood masii jiray dalkan oo isku filaasho dhaqaale ma haysataan waxa ma yeelan dadkiina beermadiina wax soo saar warshadaynayna dhagax madow baa taala dalkan dima dhagax cunaysin boolan jiray wartii ahayd maxaad ka cunaysin dalkiina waa dhagaxe ayaa Deeman isku bedelay maadaama Djibouti ay ka faa'iideysatay fursadihii soo maray taasina waxa ugu badan ee haatan la tilmaami kara ayaa ah in dekedaha dalkani
ay horumarro kala duwan sameeyeen laguna tilmaamay in dalka ugu furdadaha badan qaaradaha Afrika uu qayb ka yahay kuwa ugu horeeyo oo la adeegsado. dal nabdoon marka loo fiiriyo dalalka dariska la ah Djibouti waa dal la ciidamo dhisan oo isugu jira dhulka, cirka iyo badda intaba. waxa uu dheeray in wadamada reer galbeedka oo qayb ay ka yihiin Shiinaha, Faransiiska iyo Mareykanka ay ku leeyihiin xarumo waaweyn oo lagu tababaro ciidamada, kuwaas oo fursad kale u ah dalkani. tirada dadka ku nool Djibouti ayaa lagu sheegay in ka badan 1 milyan oo ruux.